hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka horseed oo warbaahinta kula hadlay halkani oo ah xarunta urur siyaasadeedka horseed ayaa waxay ka hadleen colaadda ka soo cusbanaatay deegaanka Buurdhar Kiinley oo ka tirsan gobolka Sool ay ku dagaalamayaan beelo walaal ah waxaana ay sheegeen in lagu soo duulay Somaliland sidoo kalena waxay bulshada ugu baaqeen in meel looga soo wadeejiyo difaaca qaranka mas'uuliyiinta ayaa waxay sidoo kale dul istaageen xeerka doorashooyinka sasaarka ee golaha guurtida la filayo in fadhigan ay ku soo qaataan waxaanay sheegeen in xeerkaasi ay golaha guurtida aad uga fiirsadaan waxaan halkan laba kelmadood ka oranayaa sida uu Mujaahid Maxamed Weere sheegay waa in la isgarab taago ciidankeena Jamhuuriyadda Somaliland waa in difaaca iyo dalkaba lagu garab istaago waxa kale oo halkan baa ugu marinaya qoladan huwanta ee soo weerartay Somaliland waxa weeyaan cudud iyo gaashaanba waanu nahay qarankana waa la difaacayaa Jamhuuriyadda Somaliland ciidankeedu uu ku filan yahay qoladan qabaayilka ka dhigaysa ee reeraha ku soo duulaysan waxaan leenahay waa la isaga imanayaa waa dalkana waa la difaacayaa dagaalkuna ma aha dagaal beelo u dhaxeeyay waa dagaal lagu soo duulay Jamhuuriyadda Somaliland iyo qarannimadeena taan difaaceedaanu leenahay waxaanaanu leenahay meel looga soo istaago waxaan doonayaa maanta in halkan fariin hawada u mariyo golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland golaha guurtida wuxuu ahaa golihii aynu kaga duwanayn geeska oo dhan waa golahadiyo goor marjac inoo ah waxaa looga fadhiyaa golaha guurtida imaka wax dalka iyo dadka israaciya oo ay ku dhacdo jawi wanaagsan oo nabdooni waad ogtihiinoo xeerkaa la soo gudbiyey ee golaha hor yaalla la iskuma wada raacsanaa dalkiina waxa weeyaan maanta crisis-kaa jira wax u tira mooyaane wax sii kiciya looma baahna ma doonayna annagu inan awdal ay tagto sidii ay gobolladii bare u tageen haddii aanu ururka horseed nahay waxaanu golaha guurtida leenahay wax dalka iyo dadkuba ay isku raacaan ayaa laydinka fadhiyaa oo aan leeyahay sidii iyo himiladii aynu ku soconnay ayaynu maantana ku soconaynaa inaan ka baydhayn qodobka labaadan ka hadlaya waxaa weeye ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranka oo aan aad iyo aad u hambaliyeynayo una sheegayo in hiil iyo hooba lala garab taagan yahay waxaa kaloo hawada u marinayaa ciidanka wixii khaladaad ah ee ciidan ahaan iyo dawlad ahaanba sumcaddeenna wax yeelayana inay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan wixii dayacanay arkaanna ay u gargaaraan oo dee markaad u gargaartaadna ilaahay kuu gargaarayaa iyagana waxaan leeyahay hore u socda waanu idin garab taagannahay hiil iyo hooba waa laydinla garab joogaa Axmed Doolhon Cable TV Hargeysa